السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بدن بدي رجيني أصحابتا كسو دوادا فتوما ريزيليانس مر لبادي مر سدحاد عدا aan garan magacayagana waa Faaduma Naasir Cali. Muhiim ah inaan ka hadlo oo waliba muxuu ahaa khuseeya dhalinyarta gaar ahaan wiilasha iyo gabdhaha dadka aanan reeraha lahayn wali oo maxay ahayd muhiim u tahay inay ogaadaan yacni waxyaabo badan anaga aan loo soo sheegin intaan yarayn ama aan looga soo sheekin waxba looga sheegin la fahansiin ayaan rabaa maanta inaan ka yara hadlo oo ah muxuu ahaayay calaaqaadka caafimaadka qaba iyo xuduudahooda. Marka lagu leeyahay calaaqad ama xiriir wuxuu noqon karaa asxaab ama saaxiibtinimo ama wuxuu noqon karaa qoys ama wuxuu noqon karaa laba qof oo wada sheekaysanaya. Markaas muxuu ahaayay calaaqadahaasi waxay qaabeynayaan noloshaada mustaqbalkaaga dambe. muxuu ahaa waxay ay yacni u taagan yihiin kalsoonidaada iyo qaabka noloshaada. haddaad intaa fahantid saddexdaas shay noloshaada ku hagaagsaa. wallahi anaga waxba nalooma sheegin yacni intaan yaryarayn sheekada la sheekaysanayna mala yacni unbay hayd xuduud ma lahayn yacni meel isugu imaada ma lahayn yacni meel dhexe oo dadka ay ku heshiiyeen ma lahayn. xataa waxyaabaha kamida in qoysasku burburaan waxa kamida yacni labadii qof inta imika wax ku heshiiyaan ayaa heshiiska hadana laga baxaya kolba. waa waxyaabaha qoysaska baabiya. haddaba sideeba u eeg tahay xiriirka caafimaad qaba sideeba u eeg yahay? wuxuu u eeg yahay qofku waa inuu dareemi karo inuu safe yahay ama uu ii sheegay uu ammaan meel ammaana uu joogo. waa inuu dareemo ixtiraam. waa inay lahaato maxay qofku uu dareemo maxay inuu keligii uu joogi karo uu cabsoonin culaysna uuna saarin qofka kale dee. halkaa ma isla garanay waxa jirta oo kale markaad dhisaysid xiriir caafimaad qaba waxa lagaaga baahan yahay labada dhinacba looga baahan inay sameeyaan waa inay labada dhinacba is ixtiraamaan oo la isku ixtiraamo culture-ka qofka dhaqankiisa in la ixtiraamo. waa inaad ku ixtiraamto qofka ikhtiyaarkiisa waxyaabaha uu dooranayo kale inaad dhegeysan qofka uu sheegay markuu wax dooranaya la yaabinde. waa in la isku ixtiraamo dareenka qofka. xataa waxa la iskula yaabaa dareenka qofka la iskula yaabaan يعني ده والله waxaan ku tilmaamo garan maaye laakiin waa muhiim in la is aamino oo labada qof is aaminaana waa muhiim. labada qof midun baan qof kale aaminin waa muhiim in labada qof is aaminaan. umana baahnid inaad cadeyn u keentid qofka mar waliba cadeyn ka sugay walba ku gelinaya qofkaas. waa inaad is aamintiin oo mar walba la isla daba taagnan cadeyn iyo qofka dhaqdhaqaaqiis iyo halkuu maray iyo isdabagalkan ma fiicna. waa inaad daacad isku ahaadaan marka isla hadleen communication-kooga waa inaad daacad noqdo. maaha qofku inuu wax qarqariyo oo uu warwareego oo kolba meel ka soo wareego. yacni de horta adduunyadan lamaba helaya wax wada dhamaystiran ma qof wada daacade. laakiin waa sida ay tahay marka xiriir caafimaad qaba qofku sameynayo waa inuu qofku nadiif noqdo daacad noqdo. hadalkuu hadlayo waa inuu hadal daacada uu ka yahay qofka. markaad isdhagaysta xitaa markaad isla hadlaysiin waa inaad isdhagaysatiin oo qofka qiimo u yeeshid qofka markuu kula hadlayo. inaad iscaawisiin labada qof ay iscaawiyaan markay garab isaga baahdaan ama miduhu yara liito dee kor loo soo yara qaadi karo. qof kaliya unba culeyskana la saaraya lagaga baxaa. waxaasina waa qalad. waxa la dhahaa toxic relationship marka qofka keligii culayska lagaga tagay ma aragteen. kaasina waa toxic relationship maahan caafimaad calaaqad caafimaad qabta ma aha. waa inaad xitaa maxay ahayd markaas caawinaysiin qofku wuxuu leeyahay goals buu leeyahay riyooyin buu leeyahay guulo inuu gaadho rabaa. midda kale xitaa dadka qaar waxay jecel yihiin waxbarashada in la isku taageero weeyaan qofka markuu wax qabsanayaba aad aragtid inaad istaageertiin. maxay ahayd
mar walbana waa isxukumaan in la isxukumana ma aha qofka waa inaad ku ixtiraamtid sidaa uu yahay abuurka qofka bilaadanka ilaahay abuurna horta lama bedeli karo laakiin waa wax qodobada yani ugu muhiimsan man ka hadlayaa ay maskaxdiina galaya haday wax fahmaysaan dadow in la sinaashaan waxaan ka hadlayaa anigo waa marka qofku go'aan aad qaadanaysiin wad shiri kartiin wada fadhiisan kartiin qofka kaligiis ka carcarana waa dhibaato waa inaad la sheer garaysid qofkan ku tiraad maanta maxay baan qabanayaa waxaad sameynaysid waa inuu isla ogaatiin intuu qofku meel kale ka soo ogaan lahaa reero badan waxaan garanaa wallahi ku burburay yani qofkii aad nolosha la wadaagtay oo guriga aad wada fadhidaan wuxuu qabanay aan war u hayn wuxuu ka shaqeynaa war u hayn waxa lagu oranayaa ha weydiin hay ma weydiinay laakiin aniga waan la sheer garanay noloshayda waa inuu qofku anigana ii sheego yani waxyaabaha uu qabanay wuxuu ka shaqeynaa halkuu tagayo is ogaano cala laqal iska war hayade wax walba ay dhici karaan adduunyadani marka iyadoon qofka aanan maxay hadee midna la controlayn midna la caburinayn midna lagu sii deynayn waxaan oo dhan waa inay balance noqdaan waa xiriirka caafimaad qaba sad ku dhisi lahayd waayahay imikana waxaan ka hadlayaa muxuu haayay sideeba u eeg tahay xiriirka aan caafimaad qabin siduu eeg yahay waayahay waxa lagu garan karaa isagana horta relation maxaa markan ka hadlo calaaqadaha mid walba ma caafimaad qabto laakiin sida u badan tahay calaaqaduhu ama xiriiradu ma caafimaad qabaan waayo wacyigii waxa aan jirin wax kala garanayay ama soo jeeday ama wax fahmayay ama maskaxdiisa qofka uu furay uu ballaariyay ayaana jirin mid walba difaac buu ku jiraa marka calaaqada aan caafimaad qabin maxaa lagu gartaa hadaba waxaad ku garan kartaa enerjigaaga kaa nuugaysaa waxaad dareemaysaa inaad yani aad liciifayso ood hoos u sii socda enerjigaagu ood arkayn wax horumar gaaraya wax hore u socda wax dib u socda mooyaane way ku khalkhalinaysaa xitaa dhinac loo socdo garan maysid xitaa emotionkaagu khalkhalaya oo de ma garanaysidba siduu u socdaba wada waxaysaa waxayna kaa dhigaysaa qof yar ama la yasayo oo kale ama ii sheegay dee liita ay kaa dhigaysaa dhowr qodob baa xaggana aan kusoo qoray oo lagu garto ama inta badan ay tahay inay tahay calaaqadani ii sheegay calaaqad aan caafimaad qabin control horta qofka in la control geed maraysa geed tagaysa maxaad u baxday maxaad soo gashay maxaad waxaan u xidhatay maxaa cidii waxaan u marsatay maxaad dharkan u xidhatay kan waa khafiif kan kala bixi yani waxyaabaha qofka de labada qof isku fahmayn waxa kamid ah in la is controlo ama la is dabaguro ama asxaabtaada la soo faragashado oo de naagahuna dumarkuna way jiraan dumar ninka dabagala asxaabtiisa oo kala gura oo kala shaandheeya raguna way jiraan oo de xaq iyo xuquuq uma lihid qofka inaad ii sheeg asxaabtiisa iyo dadkan adig ka horbaysa sii yaqaaneen inaad qofka controlshid oo asxaabta la dhaha kan ma raacsi kan raac ikhtiyaarka qofka oo laga xiro inuu qofka ikhtiyaarkiisa laga xiro oo de xurriyadda qofka laga xiro oo kale oo qofku bixi kari waayo dareemo qofku inuu jeel ku jiro oo kale kaasina waxa weeyaan caafimaad daro iyo qofka in lagu ciyaaro lagu dheeldheelo oo qofka la dareensiyo mar walba inuu dambi ku jiro ama dambi uu galay ama uu qofkan uu ka gabay dee wuxuu u qabanayay oo kale samtil ciqaabi baa la dhahdaa silent treatment oo qofka aad ka aamustid hal mar inta qof ka goosatid qofka aad walwal ku ridido muxuu qofkan kaaga aamusan muxuu u sameynaya muxuu kan kale u sameynaya waxyaabahaasi waxay dhaawacaan qofka maskaxdiisa iyo qalbigiisa walwalkan faraha badan leh qofka una nasanayn mar walba uu ku jiro in xiinkan iyo fikirkan iyo waa manipulation bay dhahdaan waa talaacub waa lagu ciyaaraya qofka lagu dheeldheelayaa dee cawaadifkiisa qofka lagu ciyaaraya emotional tricks يعني way badan yihiin waana soo aragnay ilaa imikadan way jiraan dumar xaaladda isaga jira rag xaaladda isaga jira laakiinse waxyaabahaasi waa wax aad u xun oo qofka xanuun ku beeraya ixtiraam darrada xataa in labada qof is ixtiraam waayaan
inay iscaayaan iyagoo haddana wada jooga, inay ii sheegayaan maxay haydeen isku hanjabaan, inay is ignore garayaan oo la iska dhigdhigo qofka inaan la arkaynba oo kolba la xitaa meelaha isku arkaan la isdhaafayo. haddii ay ii sheegay maxay hayd guriga la wada joogo nin iyo naag isqaba ay yihiin ay isdhaafayaan. asxaab hadday yihiin oo markay aragto in qof kale la fadhido ama gabadha kale la fadhido ay iyadna ignore garanayso, waxyaabahaas ma fiicna, waa xanuun. haddaad aragtid saaxiibada ama qofkaad la sheekaysanaysa ama odagaaga waxyaabaha kugu sameynaya ama islaantaada, waa caafimaad darro, waxaas waa xanuun. xanuunkana lama sii noolaan karo, dee adaa isku ridayaba bukaan caadiya. waxaa jira xitaa qofka xuduudihiisa oo lasoo xadgudbo oo lasoo dhaafo oo khusuusiyaadkii daakhil loo sii galayo qofka, waxaasina ma fiicna. qofka uu ka qaadaya dee waxaan noloshan maxay haydeen caafimaadka daran leh. qofka oo isagana ii sheegay laga fogeeyo xaafadiisa oo xaafadooda oo kale dhinacan kale laga fogeeyo. iminka kaba soo qaad 2 qof oo isqaba oo la isku darayo un labadii family oo la leeyahay adigu kana la hadin kan kala la hadin adiguna xagga hameerin xaggan kala hameerin, yani waa la kala diraya dadkii waa la wada kala fogeynaya, iyagiiba iskala gurayaba oo de adigu waa jeceshahay xaafadiina, anigu waan jecelahay xaafadiin. asxaabta xitaa way jiraan la yiraahdo in taa lama hadli kartid, waxyaabaha anu waa nacaa. dadka aan saaxiibka nahay haddayna isku calool fayoobeyn ana ima sheegi karaan inaan qofkaa jaro ama qofkaan la xidhiidho ama qofkaan la socdo. marka idinkana waa idin soo gudbiyey yani waxyaabaha maxay ahayd caafimaadka daran le iyo waxyaabaha caafimaadka ah. tii ugu dambeysay waa brusherka qofka cadaadis la saaro. iminka kaba soo qaad qofkeed ku qasbaysid inamari ambaxne hadda markaad aragto qofka inuu khalaas kaasii jeedo iska daa, ha qasbin. lacagta inta badan weliba dadka isqaba ayaa isku haysta biilasha iyo waxaasoo cadaadis la isku saara, ama ninka keligiibu cadaadis ku saarmaya ama naagta quraata shaqaynayso keligeed la isku saarmaya. yani waxyaabahaas oo dhan iyo khataraha qofka dabeecadiisa waxay ku jirtaa caafimaad darrada calaaqada. qofka hadday dabeecadiisu aada u xun tahay, akhlaaqdiisu xun tahay, ka fogow isagana. soconaa qodobkii 3aad oo isaguna ah saad u fahmi lahayd xuduudahaaga. haddaba waaya xuduudahaagu waxa weeyaan waa rules aad adigu dejisatay ood isku ilaalinaysid, oo aad isku ilaalinaysid nabadaada, sharaftaada, amnigaaga. waayo waxani maahan gidaar, waxaad isku hagaysaa qaabkaad isku difaaci lahayd, naftaada u ilaalin lahayd, in naftaadu ay mutaysatay inaad u qabatid weeyaan. xuduudan aad samaysanaysid intaasay ka kooban tahay walaal. qof kastana la iskuma sii daayo adduunyadan, nooc walba way leedahay. haddaba noocyada ah muxuu ahaa xuduuduhu waa maxay eed u baahan tahay? waxaa jirta physical boundaries baa jira. qofku inuu personal space uu helo, waa ina qofka haddaanad rabin inuu qofkan uu ku taabto waxaad odhan kartaa ima taaban kartid. waa xuduudaha sigaaga, wixii khusuusiyaadkaaga ah waa ka hadli kartaa. intaasiba waa boundarieeskaaga ugu horeeya. waxa ku xiga emotional boundaries, caadifadaada waa inaad ilaalisid ood maxay daryeeshid ama aad ilaalisid maxay hada dareenkaaga iyo mental healthkaaga, maskaxdaada caafimaadkeega waa inaad ilaashatid. isku sii daysid yani ina maskaxda lagaa gumaysto oo dareenkaaga lagu ciyaaro, ogow inaad hadhow toola caafimaadkaaga lacag ku bixin doontid. digital boundaries baa jira iyaguna. waxaa kamida passwordkaaga, mobilkaaga ama laptopkaaga ama waxyaabahaaga adigu aad haysatid
وين حدود يالتو أو إلهو ما تسقبتين إن التلفون كاغلو دوادا معها أدوغنا أدقفك كالكيسة ودواتيد معها online safety بيجرى حتى screen time وقت يضع وأنا وقتي وياشد وح واللبا وحدود ياشو وحدودها مكوحن كهالله وأنا وحول بحدود ياشو وح بلا حدوده هذا هودي كبحان خلخل باي مادا time boundaries بعد سجون تشرا سامع لنا ما تقعنا ده وحن وردنا time boundaries بتشرا وانا اسكول كاجا شقة هذا محي هيدا يا أصحاب هذا family جاجا وقت قد قد نسني يصير وحول بين وقت جارك ولا هذا يا دواكاس cultural boundaries بقى يسوون تشرا دقنك حدودها دقنك الله محان تاكو سودا لورت حدودها دقنك يا قفل بدقن قارو ليهي وحافظو ذا كلا يمادو إمها كبا سوقات دي دقن كاد حافظي نكلا تمادد وحاد لا تغيسا سوقي سو ماها إنو قفك دقن كيسا لغو احترامه ومهم دقن كاغا هدهاغا يا إنو وحاسو دان لغو احترامه ويان إن لغو عايا ماها دادكو يسفهم وايان لكن وإنو boundaries u yeeshade waxan xitaa marmarka qaar dhaqankaaga qofka dhaqankiisa kafta laga dhigtaa way yaqaanaan Soomaalidan aad buu yaqaanaan waxyaabahaas ma qurux badna qofka sidoo yahay ku ixtiraam dhaqankiisa ku ixtiraam jini in si wuxuu yahay halku ka yimaado cir uu ka soo dhaca xataa ku ixtiraam baro hada doonayso dhaqankiisa qofka garanayn baro oo qofka weydiin maxaa xuduudahaaga maxaa warayso دواكاس قضب كيس دحات إساقنا واكا كي أفراد بام قلعنا دي سيديباد ودج سنكرتا حدودو مسو قضب بادو باهان تاي محادو باهان تاي يا مسكحتك الشقيسي هذا با يشاقي حدودها دجين تودو كامر ديغيان قف يعني حن يا وحوي وحي كارديغان قف أرق قف نفتي سوها ذكرا قف يعني أي دتك كسو حد جد بكريم قف واحد نقطة أي شيء جاي هيستا هيد أن كلسوني بوحدة نفط هذا دتك إلى أن يسدي دتك وين عبيهم وحنا عن شيء جاي يوردنا وان أوجهي لكن هذا نوع مهم إن تبرتد على الأقل وحنا نكون شيء جاي يوم إن تكقعدة من اللبا أما صدح ومهم وحن إن فهمتد أما أتبرتد هذا أنا أذيك اللوسو شيء أنا كان لقيسو شيء dee maanta aan ka faa'iidaysano wallaahi waxaan waa qodobo muhiim ah oo u baahnaa beri hore intaan yaryar inaan barano waxa ka mid ah imika qof markaad isla hadlaysiin adigoona isku dayan inaad qofka aad shucuurtiisa qofka aad daawacdid ama aanad rabin inaad hadal xun ku tiraahdid waxaad ku odhan kartaa waan ku ixtiraamayaa waan ku qadarinayaa لكن وقت حاضر كان أنا قد دياره ما إيه وحن هدول حتى كل صو قال يقف قد وحن خصوصيات أن وحبك هاجرن وكل صو دونان يقف كان واحد أوران كرتا حتى أن هبك ما إيه وحن تكشي كين يسد فضلا الباب كان نجحد مرك قفك حدود هذا وسوق قد بيه حتى واحد كوران يسافر فضلا ما تشعلي وحن تكشي كين يسد ما سدن هاد إلى دق ما يسد طبي كاين نجحد haddii aad isku haysatiin maxay ahayd passwordka ama telefoonkaaga ama laptopkaaga passwordka isku haysatiin runta u sheeg qofka ku tiraahdaa walaalow anigu lama share karayo cidna muxuu passwordka iyo khusuusiyaadkayga qof walba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo wax u gaara isaga oo cidna la share gareyn karin ilaahu walaasha walaalka aabaha hooyada muxuu ka ku qaba naagtaad qabtid iska daabada saaxiibkan iyo waxaan saaxiib iska sii fog yahay bay intaaba lama sheer gareyn kartid way waxyaabahani wala isku dhaxmilmaya inta la isku dhaxmilmo oo wax walba la isla sheer gareeyo hadhow toole
dagaal baa ka dhalanaya wala isfahmi waaya waa kan hadhowto la islaynayo maalin un baa la islayn oo wax walba la isku soo tuurayayo oo lagu heshiinayn hadhowto le waxaas markaad wax ka fikiraysid ma go'aan raba in la gaadhana waxa la dhahdaa waqti isi fadlan waqti qofka waa inaad siisid waqti uu ka soo fikiro waxaan uu process qaato oo de jawaab sax naftan ay u soo hesho laakiin imika dad tiraado imika waxaanina imikan qaban laakiin waxaan waa in waqti uu qaato ma ugu badnaan 3 cisho hatta qofka maalin uu qaadan karo kaga soo fikiro inuu ra'yigiisa wama go'aankiisa uu gaadho ra'yiba soo bandhigteen go'aankii baa la sugayaa go'aanku waa inuu qaato ugu yaraan maalin ugu badnaana 3 cisho waa haddii aad rabtid isheeg nolol caafimaad qabta oo ama qoys caafimaad qaba sameynaysid ama saaxiibtinimo caafimaad qabta degdega faraha badan dadka wuxuu dhaafiyaa waxyaabo badan buu dhaafiyaa oo maxay hayday degdeguna ma fiicna shaydaanka mustacjil ah marka waana wax walba time uu qaato marka qodobadani waxay ka caawinayaan inaad adiguna naftaada aad sheegay aad ilaalisid nabadeeda dadka kalena aanad waxyeelayn waayahay imikana waxaan ka hadli doonaa wacyigelinta ogolaanshuhu maaha mid adag horta waa wax aad samayn kartid oo gebigeena baan samayn karno waa inuu noqdo wax cadaan ah war cad waa inuu noqdo sheegay mid yani si mutadawacnimo aad u qaban kartid waa inuu noqdo mid la bedeli karo waa inuu noqdo sheegay wax wargelin leh oo qofka aad ku wargelinaysid waa inuu noqdo mid dhiirigelin leh haddaba qofka hadduu aamuso ma aha ogolaansho hadduu qofku kaa aamuso ma ahan ogolaansho macnaheedu haddii uu qofku sheegay uu cabsoodana ma aha ogolaansho qofka haddii aad pressure saartidna ogolaansho ma aha saddexdaasiba ya dawaakaas inta dheerna idinka ku diri doona dee saddexdaad aragtid ogolaansho ma aha uu diidan yahay qofkani waxan laakiin qofku waa inuu hadlo uu yiraahdo waxan ma rabo waxana waa rabaa waayahay haddaba imikana waxaan ka hadlayaa xasaasiyadda dhaqanka bulsho kastaba waxay la timaadaa dhaqan gaar ah dhaqanka gaarka ah waxa weeyaan in lagu ixtiraamo qofka dhaqankan uu sito oo qoys kastaba qaab uu u dhaqmo ayuu leeyahay bulsho kastana qaab ay u dhaqanta ay leedahay markay isku yimaadaan qof kastaba dhaqankiisa in lagu ixtiraamo weeyaan xiriirada caafimaadka qabana waxay ixtiraamaan dhaqankaaga waa inay ixtiraamaan xiriirku hadduu caafimaad qabo waa inuu dhaqankaaga qofka dhaqankiisa ixtiraamo ama carab ahow ama ahaw sheegay Soomaali Djiboutian ama ahaw Soomaali Somalilandara ama ahaw Soomaali Kenyan ama ahaw Soomaali Ethiopian ama ahaw Soomaali muxuuha Soomaaliya ama Muqdisho ama ahaw Soomaali Puntland horta meel kasta oo laga yimaadaba qofkani dhaqan gaar u haystaa dhaqanka guud ee Soomaaliyeed marka laga yimaado waxa jira dhaqan kale oo de gobol kastaba uu leeyahay u gaar ah imika xidhiidhada aan ka sheekeynayo markay isguursadaan dhaqamadan kala duwan dhaqankii baan la isku fahmin guriga marka la isku yimaado marka qofka waa in dhaqankiisa baratid aad ixtiraantid odoona isku dayeen qofka dhaqankiisa inaad masaxdo tiraahmay maadaama aniga aad igu soo biirtay waa inaad aniga kayga qaadatid ma qaadan karo walaal qofku meel uu ku soo koro uu ku soo barbaaro uu ku soo weynaaday ya dhaqankaaga kuma qasbi kartid oo xaqna uma lihid inaad qofka ku qasabtid dhaqankaaga sida qofku uu yahay ku aqbal ku ixtiraam ma ku cajabin waaye iska siidaa qofka يعني وقالت كأي سمايان دت كان محيط سوماليدو دقن قف كان أونا لهين يوقف كو قصبيا وكدور دقيا ما تربى لوجونا نبيا أو دكلا لجا ساريا ما بالي هيد دقن كان كمات سوكرين محمر كقف كأودي بعلاس أساري بقى
يعني waxyaabaha iga yaabiya anigu aan inta aan soo jiro nolosheeda dad uman ku dhex jiray dad uman baranayay dabeecadaha kala duwan ee dadku uman baranayay intaas oo sano aan soo socday wallahi billahi meel walba aan soo maray يعني nooc walba soo arkaysaate qasab ma ah muhiimna ma ah qofku inuu dhaqankaaga uu qaato qaar ba xataa ku qasbo qofka dabeecadiisa kala u yeesho ma noqon karta de waxan abuuris ilaahay suu abuuro qofkan jirta kama bedeli kartid ku ixtiraam qofkan sidan ilaahay uu abuuray iyo dhaqankiisa uu qofkan uu sito idin sheegay waxa noqon karta qof يعني dadkoo dhan fahmi kara حتى haddaanad rabin iska dhig yaa xukumin qofna iska dhig inaad yani aad la qabsatay oo kale dhaqankoogiyood la haysatid haddaad xitaa aanad rabinba laakiin qofka culays iyo barashar ha saarno ha wareerino maanta dhan kalba dhinaca kaga yimin ha odhanaa dhaqankayga qaado kan kale u soo wareeg xaggan kala tag anagu san baan sameynaa sidan samee anagu sidan kalaan sameynaa hadda xitaa qofka dhaqankaaga barasid si yaroo dabacsan oo naxariis ku jirto qofka u bar wax amar lagu siinayo dee amar cidna ma qaadanayso walaalo taasaa runtii yade haddaba waxaan ku gabagabeynayaa in badan baan soo hadlay waxaan ku gabagabeynayaa xiriirka caafimaadka qaba wuxuu kaa caawinayaa inaad kortid wuxuu kaa caawinayaa inaad ilaalisid xuduudahaaga nabadda ee mustaqbalka waliba waxaan la hadlayna waa dhalinyarta dadkii sidoo kale soo guursaday ama reere ka soo burbureen ama ma aha waa dhalinyarta waxaan la hadlayo waxaanad istaahishaa xiriir caafimaad qaba oo ku dareentid nabad iyo ii sheegay muxuuha ixtiraam iyo qiimeyn haddaba markaad ii sheegay aad skillskaaga iska dhistid inta aad yar tahay ee weli aanad gaadhin yani guur iyo intaanad gaadhin inta iska soo dhistid waxaad garani kartaa waxaad noqon kartaa qof adag waxaad noqon kartaa qof family dhaqi kara ilaalin kara waxaad noqon kartaa qof ii sheegay adag oo bulshada markuu ku dhex jiro dee adag oo garanaya wuxuu rabo iyo ii sheegay waxa naftiisa ay dee caafimaadka ku jiro oo naftiisa ula rabo waxaanad noqon kartaa qof adag oo yani wax fahansan wacyigiisu kor u kacay wax kala fahmaya ya xiriir la iska meedhaahdo yani calaaqad qofku iska galayo inuu markaad guriga wada tagtiin bas fahmaysiin iyo markaad maxayga ilmaha koobaad dhashiin bas fahmaysiin waxaan waa been yaan laydinku sheekaynin inta hore eed yar tahay wax akhriya wax baara wax fahma bulshada dhex gala ya wacyigiina kor u qaada wallahi haddaan garanaya maanta intaan garanaya baan idhahdaa berigii hore waxyaabo badan baan hagaajin lahaa laakiin dee imikana halkan aan joogo baan imikana ka bilaabaya mushkilad male idinka waa idinka faa'iideynayaa dhalinyarta dumarka iyo ragaba gaar ahaan wallahi horta dumarku waa inay wacyigooga kor u soo qaadaan oo jacaylkan indhahala ya ay wax ka bedelaan hagaajiyaan qofku waa inuu wax fahmo wax kala garto maskaxdiisu korto maskaxdana wax laga qabtaa tan waa inay weynaato tan haddii lagaa gumaystana wax ma qaban kartid caafimaadkaaga maskaxdana haddaad ilaashan weydid ogaada inaad caafimaadkaad intaad yartaad soo ilaashan weyday inaad dhakhtar ku bixin doontid lacag ku bixin doontid taasaan idiin sheegayaa dee waan dhameeyay aad baad u mahadsantihiin sida fiican idii daawateen idii dhagaysateen khayr badan baa idii rajeynayaa ha iloobina channelkaygana subscribe dhaha share comment fiican iga taga muxuu cidii aanan garanayna usii share gareeya dee waa idinkaan khayr badan baa idii rajeynaya habeen wanaagsan maca salaama anigana ii soo duceeya idinkana idiin soo duceeyo khayrkana waa la isgaarsiiyaa baa layidhi maalin walba mawduuc eray igu soo dhaca waa idiin soo diyaarin halkaas ku soo tuuraya aniguna bye bye